wasiirka dastuurka dowlad goboleedka Galmudug oo dhawaan magaalada Kismaayo uga qayb galay shir looga hadlayay dastuurka Soomaaliya oo wareysi gaar ah si Galmudug TV ayaa ka warbixiyay shirkaas Kismaayo ka dhacay ee ka qayb galeen wasaaradaha dastuurka dowlad goboleedyada iyo midda federaalka Soomaaliya. shirkaas wuxuu dhacay 7 bishii bilowday ilaa 9 bisha wuxuu socday muddo 3 maalin ah waxa looga hadlayay laba qodob qodob wuxuu ahaa in lagu soo bandhigo dastuurkii dib u eegista lagu sameeyay cutubka 1 ilaa 9 oo halka lagu soo bandhigay qodobka labaadna wuxuu ahaa sidii dastuurka dib u eegista lagu sameeyay loogu daadejin lahaa shacabka Soomaaliyeed ee jooga gobolada Soomaaliya loona geyn lahaa caasimadaha dowlad goboleedka iyo tuulooyinka ilaa hadii Ilaahay raadabiyad marka labaad qodob uu ka koobnaa runtii waxa isugu yimid dhammaan hay'adaha oo dastuurku quseeyo sida wasaaradda arrimaha dastuurka federaalka guddiga la socodka dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka guddiga madaxa bannaan ee maaragtay isheeg federaalka dastuurka wasaaradaha dastuurka dowlad goboleedyada guddoonada baarlamaanka heer state ama maamul goboleed guddiyada dastuurka baarlamaanka heer federaal heer state marka dhammaan dadkaas isugu yimid wuxuu ahaa shir joint ah ama oo looga wada tashi sida ugu fudud ee loo gaarsiin lahaa dastuurka gobolada Soomaaliya. wasiirka ayaa si gaar ah waxa uga hadlay waxyaabihii Galmudug ay shirkaas la tagtay isla markaana ay soo bandhigtay waxa uu tilmaamay in Galmudug ay soo jeedisay talooyin ku saabsan dhamaystirka qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya. run ahaantii inta badan horta isteediyada iyo maaragtay isheeg isku aragtibay ahaayeen inta badan hase yeeshee waxa jira konseeno cabashooyin la kala qabay si gaar si la socotaan waxa jira guddiga madaxa bannaan oo magacaabay madaxweynaha Soomaaliya ee loo xil saaray inuu soo diyaariyo dastuurka kadibna uu soo gudbiyo labada aqal kadibna labada aqal ay u gudbiyaan wasaaradda federaalka ay kala tashato markaas dowlad goboleedyada guddigaas aan soo sheegay runtii waxa lagu ballamay shirkii Baydhabo ka dhacay ee madaxweynayaashu isugu tageen in dowlad goboleedyadu ku biiriyaan guddigaas min hal xibin oo ka socota state kasta hal xibin oo ka socota si loo helo maaragtay isheeg isteediyada oo yahay matalaad hase yeeshee markaan soo gudbinay anaga ka wasaarad ahaan oo xubintaan u soo gudbinay guddigaas laguma darin isteediyadana inta badan laguma darin marka Galmudug ahaan waxaan soo bandhignay in haddii la rabo dastuurkan inuu dhammaystirmo oo kalsooni loo maaragtay isheeg loo qaado shacabka reer Galmudug inay ku kalsoonaadaan ay noqoto in xubintii Galmudug soo magacaawday guddiga ay soo magacaabatay in degdeg loo howlgeliyo kadibna waxa dhiman si loo dhammaystiri lahaa waxaan sidoo kale anaga ka Galmudug ahaan aan maaragtay dalbanay maadaama aan deegaankeena u yahay deegaan ballaaran oo maaragtay dawladdu access u heli karto inay gaarto in maaragtay isheeg lagu bilaabo wada tashiga koobaad in lagu bilaabo Galmudug lana gaarsiiyo dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka haddii Ilaahay idmo sidoo kale waxaan anagu si gaar ah meesha geysanay shir waxa jira moka forum la yiraahdo oo dhaca wasaaradda dastuurka isugu yimaadaan isagana in lagu qabto haddii Ilaahay raado Galmudug gaar ahaan Dhuuso Mareeb. Axmed Cumar, Galmudug TV.